بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrin khusaysa community-geena. Arrintaas maanta marka maxay tahay? Arrintaas waxay tahay tuushanka waxa la yiraahdo ciyaalada laga caawiyo waxyaabaha subjects-ka ay ku liitaan privately. Tuushanka marka hadda wuxuu noqday business aad u weyn oo wadankan especially Ingiriiska aan joogno target laga dhigay waliba dadkii community-geeni la target gareeyay maadaama caruuro badan aan haysano wadankana aan ku cusubnahay marka maxay ahayd tuushanka inaad fahantiin ayaa loo baahan yahay ilmaha tuushanan geeyaa meelaan kaxeeyaa 2 saacadood 3 saacadood 4 saacadood soo joogaa lacag baan bixiyaa hadhowna waa soo kaxeeyaa arrinta waa ka fog tahay tuushanka ilmaha ma aha babysitting ma aha ilmaha meesha waxa u geysay inuu wax ka soo barto waxaad lacagta ku bixisaan inuu wax ka soo barto marka arrinta tuushanka waa inaad dib u eegtaan maxaa yeelay khaladaad badan ayaa iiga muuqda iyo lacag badan oo la weysgareynayo iyo waqti badan oo la dilayo ayaa iiga muuqda for example qoliyaha xaafadaheena hadda tuushanada ciyaalada siiya ee Asian-ka ah waxay leeyihiin waxbay calculate gareysanaya 4 saacadood 5 saacadood 6 saacadood 4 saacadood ugu yar waxooda marka ilmaha primary age-ka ilmaha secondary age-kana waa 5 iyo 6 saacadood marka 5taas saacadood ama 6daas saacadood ayaa waxa lagu dhufanayaa 7 ilaa 8 gini marka 8 gini ka soo qaad baadaan 5 saacadood ku dhufano waa 40 gini marka ninka meesha dadka meesha rangareysanaya calculation-ka ay dejisteen waa calculation business ku shaqule aan ku shaqulahayn in ilmahan wax la baro ama loo faa'iideeyo hadda ilmahaaga intaad geysid aad tiraadid hal lesson ECO 8 gini ka dhiibaya xitaa ma ogolaanayaan waxay kugu khasbayaan oo kugu sanduleynayaan inaad 4 saacadood ama 6 saacadood ka qaadatid iyagoo ku tusaya inay ilmahaaga aqoontooda liidato una baahan yihiin saacadaha ilaa xadkaas ujeedadiisa laakiin asaga waxay tahay inuu saacadaha badsado lacagta ku multiply gareeyo halkaasna uu lacag ka sameeyo marka hooyooyin iyo aabayaalow dib u eega haddaadan tuushankaas aqoonteeda lahayn ilmahaaga inay wax ka soo barteen in kala aadan analyze gareyn karin dib u eegi karin ka hadli karin please lacag ku bixin maxaa yeelay waaba khalad 4 saacadood in ilmo meel la fadhiisiyo la yiraahdo waxba la baraya taasaaba xadgudub weyn oo ciyaalka laga galay weeyaan inaad 4 hours ama 5 ama 6 hours cunug meel fadhiisisid oo aad tiraadid wax barto iskuulka la tago xitaa saas lama sameeyo ilmaha 4 saacadood isku xiga wax lama baro iskuulada xitaa ma ogola ilmahana maskaxdiisa ma qaadi karta 4 saacadood oo wax barasho ah iska badaa 5 iyo 6 maskaxdooda ma qaadi karto ilmaha waa torture ay ku tahay arrintaas arrin raadlana ma aha ilmahaasna wax ma soo baranayo ilmaha qaaraaba laga yaabaa inay meesha u tagaan maxay ahayto just guriga ka baxo meesha soo fadhiiso hooyooyinka qaaraaba laga yaabaa inay babysitting ahaan u isticmaalaan oo 4 saacadood ilmahaas intay meeshaas ku soo xidhaan hadhow u soo noqdaan sheekada saas ma aha sheekada waa ilmaha in la caawiyo oo wax la baro marka ilmahaaga inay wax bartaan oo faa'iideystaan hadaa rabtid waxaan kuu sheegayaa 4 saacadood iyo 5 saacadood in meel la fadhiisiyo wax la baro inaanu ilmahaaga waxba ka faa'iideynin teeda kale meelahan aan idin sheegay caruuraha aad geysataan waxaaba la sheegayba in shaqadoodaba ay tahay computerka inay waraaqa bas papers ka soo saaraan oo ilmaha miiska inta loo saaro bas paperka la yiraahdo ka shaqee bas paper computerka laga soo saaro ilmaha loo dhiibeen wax laguma barto ilmaha meesha aanu casharka ka fahmeyn waa in lala fadhiisto oo loo sharxo uma baahna warqad computerka inta laga soo saaro bas paper in la yiraahdo xafid oo ka shaqey marka bas paper ay nimankaas ku shaqeeyaan bas paper hada ilmahaaga computerka adiga uga soo saar maxaa lacag u dhiibaysaa computerka uga soo saar ha ka shaqeey ilmahaaga wuxuu garan waayana walaalihiis iyo wixii ehel u ah ama xataa macalinkiisa ogol
su-aasha uu garan waayo inuu ilmahaaga ula tago uu yiraahdo meeshaanan garan waayo macalin ii sheeg. macalimiinta qaara ogol, familigaad ka dhexelaysaa, haddaad adiga aqoonteeda leedaad caawin kartaa. marka maxay tahay baas paper lacag ha ku bixinina. waxaan idin leeyahay ilmaha haddaydan aqoonteeda lahayn ka daba tegi karin, wuxuu meeshaas kasoo bartay analyze aadan ku samayn karin ilmaha, because of waxaan geeyaa tuition oo lacagaan dhiibaa. ilmahaaga meel ha u geyn, lacagtaada hayso. taasaan kugula talinayaa. teeda kale waalidiin waxaa jira intay ilmaha sii daayaan sugaan maalintuu GCSE-da galayo, imtixaankii ugu weynaa secondary-ga uu galayo, soo baraarugo oo dhaha allah maanta macalin English u baahnahay, ilmahayga GCSE examkii u fadhiisanaya. waxaasna ma shaqaynayaan. ilmaha caawimada waa inaad kaga soo bilowdaa day one markuu secondary-ga fadhiistay. caawimada uu u baahan yahay ilmahaagana waxaa ku ogaan kartaa marka aad parent evening-ka tagtid. parent evening-ka adoo taga ilmahaagana waraysta ayaad ku ogaan kartaa caawimada uu ilmahaas u baahan yahay. parent evening-ka markaad tagtid waxaad soo ogaanaysaa ilmahaaga levelkiisa, levelka loo diyaariyay inuu sanadka gaaro, ma dhaafay, ma ka dhacay, ma gaadhay. su-aalahaas oo dhan waa inaad isweydiisaa macalinka markaad la kulantid parent evening-ka. su-aalahaasoo dhan jawaabtoodaad helaysaa. marka haddii ilmaha lagu yiraahdo one of the subjects uu baranayay ayuuna targetkiisi gaadhin, dan waa inaad ilmahaas la dadaashaa. ma dhahaysid markuu GCSE examka galayaan arrintaas ka caawin doonaa, maxaa yeelay waa arrin waxa waaye arrinaan shaqaynayn, waa waste of time and money. marka ilmaha day one meesha uu ka liito waa in day one laga dhisaa, nad markuu imtixaanka finalka u fadhiisanayo. day one waa inaad ilmahaaga ka warhaysaa. teeda kale waxaa iyadana badatay caruurteena inaanay GCSE-daba dhaafin, ee level iska badaa. kulligoo GCSE dadka wadanka ila degan waa og yihiin sheekadan, sheeka aan samaynayo ma aha. GCSE foundation ay caruurteena ku go'een. GCSE foundation naag laguma aado jaamacad iyo A level laguma aado. marka waalidow waxaan idin weydiinayaa maanta ilmihii wadankan ku dhashay ama wax ku bartay ee ku koray waxa ay facood uga hadheen oo aanay A level u gudbi karin oo kulligood foundation u wada fadhiyaan, jawaabteeda idinkaa laydinka rabaa. ciyaalka farta lagu fiiqaayana hala daayo. ciyaalka farta lagu fiiqaayo hala daayo. waalidka ayaa arrintaas eedeeda leh. haddaadan ilmahaaga la socon waxbarashadiisa iyo aadan waraysan, iskuulka waraysan, asaga waraysan, oo meesha uu ka caawimo uga baahan yahay aadan ka warhaynin, ilmahaaga waa saaqidayaa. inuu saaqidana aniga ilmaha ma baleem garaynayo. adiga isweydii maxaa keenay. haddaad jawaabta aad isiinaysid ama aad bixinaysid caawa ay tahay aniga maxaan ka aqaanaa iskuulna intaas waa u diraayay, tuushana waa geynaayay. tuushanka aad geynaysay ma tuushankan 4 saacadood ahood maxay to timeka inta la dheeraysto lagu multiply garaynayo lacagta loo furtay miyaa tuushanka ilmahaaga geynaysay, mise waa tuushan aad ka warhaysay wuxuu ka soo bartay iyo waxa loo soo dhigay iyo meesha uu ka gaaray ma ka warhaysay, mise waa uu iska geynayso ilmaha tuushana la geeyaa. tuushanaan geynaa 20 baan ka bixiyaa, 40 aan ka bixiyaa cunugayga, khamiis kastaan meesha geeya iyo sabti kasto. waxaas waxba kama jiraan. waxaasna ha isku seexinin. waa inaad og tahay tuushanka ilmahaana u baahan yahay, maxuu u baahan yahay, subjectka laga caawinayo muxuu yahay. meeshaan aad geysayse natiijo ma ka soo baxdo, wax ma ka faa'iiday. waa inaad weydiisaa. qof lacag iskama siinaysa meesha. baby sitting ma aha. I think shaqada meesha laga qabto waa baby sitting 4 times 8 6 times 8 ay nimanka lacagta ka qaataan. 6 times 8 kaas uu xisaabsanaya oo 4 times 8 ujeedada meesha u furanta waa taas. adaa laga rabaa inaad fahantid. marka arrintaasaan idinku baraarujinayaa. dib u eega. waxaan iska dhahay ma aha, waa waxaan arkay oo aan ogahay oo aad og tihiin. okay, qofna kuma aamini kartid ilmahaaga mustaqbalkiisa.
ilmahaaga mustaqbalkiisa macalinkiisana kuma aamini kartid kan aad lacagta siinaysidna kuma aamini kartid ilmahaaga mustaqbalkiisa adiga gacanta ku haya qof aad ku aamini kartid ma jiro oo u daba fadhiisanaysid marka arintaas ka fakara ila fiirsha waxaan rajaynayaa videogana ka faa'iideen haddaad ka faa'iideen thumbs up iyo subscription haddaad su'aal qabtaan hoos igu soo qora waxaan kaloo aan idin leeyahay videogan la share gareeya dadka aad jeceshihiin iyo dadka aad taqaanaan si ay uga faa'iideystaan uguna baraarugaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh